سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك يا سيلا مغلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan bartamaha uga jirnay salaadii iyo xawaashii ku saabsanayd. waxaanu soo ogaanay fadaa'il fara badan oo aan la soo koobi karin inay salaadu leedahay. waxaan soo ogaanay inay tahay tiirka labaad ee islaamku uu ku dhisan yahay. waxaanu soo ogaanay xiriirka ka dhaxeeya ilaahay iyo addoonkiisu inay salaada tahay. waxaan soo ogaanay dhib walba oo qofku soo food saaro inuu ilaahay sabab uga dhigo inuu salaada uga baxo. qofku inuu kaalmaysto sabir iyo salaadna waxbaanu ka soo tilmaannay. salaadu inay tahay oo aysan la mid ahayn cibaadaadka kale oo xagga sare inta rabbi u qaaday rasuulkiisa kadibna uu u soo dhiibayna waxbaanu ka ogaanay. bacdanay xaaladdu sidaa tahay, waxaanu sii ambaqaadaynaa salaada iyo arrimooyinkeeda. saan la socona waa webi qofka gurigiisa albaabkiisa maraayo, webigaasoo biyo fara badanna ku jira. halkii marna qofka uu ku qubaysanayo 5 mar ayay u dhigantaa salaada. ma aha 1 mar iyo 2 mar, ma aha 3 iyo 4, 5 buu yiri nabiga sala allahu calayh wasalam. saxaabadiisa intuu la hadlay ayuu ku yidhi, waxaad iiga warantaan axad adinka idinka mid ah haddii webi albaabkiisa hortiisa webi uu maraayo, webigaasoo biyo fara badan leh, halkii marna uu ku qubaysanayo halkii maalinba 5 mar, qofka korkiisa wasaqi ma ku haraysaa? saxaabadu waxay dhaheen, may rasuulkii ilaahayow, macquul ma noqon karto qof 5 mar ku qubaysanaya maalintii webi biyo fara badan leh inay korkiisa wasaq ku haraan. waxaa la mid ah salaadaha 5 ah ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. sida qofka webiga ku qubaystay halkii maalin 5 mar ay wasaqda uga baaba'do yay salaadu dembiga qofka looga tirtiraa, dembigaa lagu hoogiyaa, dembigaa qofka looga dhaafaa. xaaladaasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. nin baa rasuulka u yimid, wuxuu dhahay, rasuulkii ilaahayow, wixii xad ah bal iga og. naag ayaa waxaan ku sameeyey nin wuxuu naag ku sameeyo oo dhan, wax aan dhaafay ma laha. hadday shumin ahayd waan shumiyey, hadday dhunkasho ahayd wuu dhunkaday, hadday tuujin ahayd wuu tuujiyey, hadday riixid ahayd wuu riixay. wax allaala wixii nin naagi ku sameeyo waa ku sameeyey, laakiin galmood ma ku samaynin, uma tegin oo dhanka farjiga ah ma uusan aadin, laakiin wuu qubliyey oo wuu shumiyey, wuu dhunkaday, wuu taabtay. riwaayadaha qaarkood wixii nin naag uu ku sameeyo oo dhan ayaan ku sameeyey buu yidhi. xilligii salaadaa la gaaray, salaadii buu ninkii tukaday. mar allaala markii salaadii uu tukaday uu ka baxay yuu haddana rasuulka u yimid, arrintii buu u sheegay. manala tukatay buu yidhi. rasuulku ninku wuxuu dhahay, haa waan idinla tukaday, dembigaagii waa laguu dhaafay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. oo waxay taa tilmaamaysaa inuu ilaahay soo dejiyey, wa aqimi asalaah طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وصلاة أوغا وصلاة تكذا وصلاة هجاجية طرفي النهار مالنت لبدي ذدعل قبل هبينك كمد أهما صلاة تكذا حسناتك أرلت مذين يا حمانت ترتريسا دمدي أبقشي صلاة لغاقه بيي صلاة لغاقه ترتري صلاة لغاقه طافي
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ninkii farxad buu la dhacay markaasuu dhahay yaa rasuul allah ani keligay miya bishaaradan ma ani keligaygay qaas igu tahay? nebigu wuxuu dhahay maya ummadayda oo dhan waa sidaa. idan qofka markuu dembiga kiisa waaweyn ka tagtago yaryarka ilaahay wuu cafinayaa. soonkaa lagu dhaafaa, salaadaa lagu dhaafaa, alamru bilmacruuf baa lagu dhaafaa, nahyiga munkarka la reebaa lagu dhaafaa. allaa yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu, haddaad ka fogaataan dembiga laydinka reebaya kiisa waaweyn nukafir cankum sayi'aatikum, yaryarka waan idiin dhaafaynaa. waxyaabaha yaryarkaa ilaahay qofna dumarkaaga dhacda hal mar oo aad dhunkato, waxyaaba noocaasood ku samayso towba la'aan buu qofku salaada iyo soonkuu tukanayo yaa ilaahay uga dhaafaa subxaana wa tacaala. amaa zinada weyn, shirkiga, waxyaabaha lamidka ah iyo dunuubta kabaa'irta ah towbay u baahan tahay. ilaahay baa yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alifmi waalfawaaxish ila allamam. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay dadka qiimaha leh inay yihiin dadka ka fogaada dembiga kiisa waaweyn iyo kabaa'irta fawaaxishta iyo zinada ila allamam, yaryarka maahane. ilaah yaryarka dadka waa u dhaafaa. ina rabbaka waasicu lmaqfira huwa aclamu bikum id ansha'akum min alardi waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa. dadka qiirka leh ee alla agtiisa janno ku gaaraya, sharafta iyo ciziga helaya weeyihiin waa kuwa ka fogaanaya dembiga kiisa waaweyn. waxay ka durqaan dembiga kiisa culus, waxay iska ilaaliyaan kabaa'ira alithmi, shirkigay ku fasireen, waalkabaa'ir zinada iyo waalfawaaxish zinaday ku fasireen. ila allamam, yaryarka maahane. ina rabbaka waasicu lmaqfira, rabbigaa waa alla dembi dhaafkiisu ballaaran yahay, deeqdiisii dembi dhaafkiisu waa waasic. ilaahay dembi dhaafkiisa iyo ciqaabkiisa dembi dhaafkiisaa badan, xanaaqiisa iyo naxariistiisa weyn. saa darteed raxmadda ilaahay aad bay u weyn tahay. wasicat kulla shay, wax kasta way ka ballaarnaatay naxariista alle subxaana wa tacaala. salaada xaaladeedu waa sidaa. ninka waad u jeedaan dhibka ku dhacay, waxa looga dhaafay salaadii uu tukaday, waxa looga dhaafay webigii uu ku qubaystay, waxa looga dhaafay wisqaadkii uu weyse qaatay. intuu farxay buu yidhi keligay miyaa rasuulkii ilaahayow? mayaa loogu jawaabay waa ummadda oo dhan, mayaa loogu jawaabay waa ummadayda dhammaantood. xaaladaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. haddaba qofka muslimka ah inuu aad iyo aad u dadaalo, feerjignaado, rabbi amarkiisa fuliyo, salaada ilaaliyo waa wax muhiim ahoo loo baahan yahay. alla agtiisana sharaf iyo qiimo iyo wanaag buu ka gaaraa. salaada waa shay aad iyo aad u culus, ma samayn karaan ilaa dadka khushuuca maahane. munaafiqiintu inay tukadaan aad iyo aad bay uya, sababta waxay tahay waa munaafiqiin. salaadu kuma ladoodaan oo ma macaansadaan, cibaado raaxa leh uma arkaan, kaslaan iyo wahsi bay ku tukadaan. mar un yaa ka tukadaan low aysan cabsan lahayn oo maalkoodii naftoodaysan u baqi lahaynna maba tukadeenba. ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum. munaafiqiintu allay khiyaanayaan, munaafiqiintu allay dhagrayaan. waasay ayagu markaa la tahay. horay waan u soo tilmaamay inuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala mar allaala markii ay rabaan inay wax sameeyaan waxay u maleeyaan inay ilaahay khiyaanayaan, inay khiyaano ku socdaan. yukhaadicuuna allah waaladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruuna fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun. taa waxay tilmaamaysaa in rabbi subxaana wa tacaala agtiisa khayrka iyo wanaagga uu ka gaarayo qofka salaada u degdega daa'ima
ku khushuuca xifdiga oo ilaaliya. amaa munaafiqiinta yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum, asagana wuu qiyaani oo wuu ka abaalmarin oo waa dhagrayaa. waidaa qaamuu ila asalaat, markay rabaan inay salaada tukadaanna qaamuu kusaalaa, wahsashay ku kacaan, afartii ku istaagayaan. wahsi iyo dhib bay salaada ku tahay, culays saaran bay ku tahay. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaasa, dadkay istustusaan. walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan, rabbina ma xusaan ilaa in yar maahane. mudabdibiina bayna dalika, muslimiinta iyo gaaladay ku dhex meeraystaan. laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i, kuwana ka mid ma aha. gaalo caddaystay gaalnimadooda, anagu islaam ma rabna yirina ma aha. muslimiin dhab ah oo islaamkii u barax tiray, qalbigooda saafi uga dhigayna ma aha. waxaa la raadiyaa oo dadka noocaasa laga raadiyaa calaamaadkooda inay salaada kusaalo uga istaagaan, inay wahsanayaan, inaysan salaadu jeclaysanayn, inay salaadu ka caajizayaan, inay salaadu necab yihiin. saasaa markaa lagu yaqaan salaadaha ugu culus oo aynan tukan karin munaafiqiinta waa salaada subax, suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, iyo salaada cishaa'iga ah. labadaas salaadood qofkii ku cuslaato, labadaas salaadood qofkii sidii loo rabay aan uga soo bixin, labadaas salaadood qofkii ay ku adkaato, waa sifaad iyo calaamad munaafiqiinta ka mid ah. waa laba salaadood oo igu culus tahay munaafiqiinta. sababta kaliftayna iftiinkani ma uusan jiri jirin, mugdi baa lagu tukan jiray. salaada subaxna mugdi baa lagu galaa, salaada cishaa'igana mugdi baa lagu galaa. labadaas salaadood dadka badankoodu arki maayaan, amaa salaadaha kale ee iftiinka jira way soo xaadiraan hadday ogaan lahaayeen fadliga laba salaadood ku jira, cishaa'iga iyo salaada subaxna la aatowhuma, way imaan lahaayeen ayagoo siqaaya oo birada ku siqayaba ha ahaato, ayagoo gurguuranaya masaajidka soo geli lahaayeen. laakiin aaway cilmigay ku fahmi lahaayeen, aaway garaadkay ku aqoonsan lahaayeen, aaway ictiqaadkii ay ku samayn lahaayeen, aaway macaansigii qalbigooda geli lahaa, salaadan ay kuga faa'iidaysan lahaayeen. munaafiqiinta dhibkaasay leeyihiin. munaafiqiinta salaadaha way ku culus tahay. munaafiqiinta salaadaha ma tukan karaan. ee qofka muslimka u labadaas salaadood xooga saar. qofkii salaad subxeed iyo salaad cisho hagaajiyey, saddexda kale ka soo hartayna way u fududaanaysaa. qofkii labada ay ku cuslaato, inta kale inay ku cuslaatay u badan tahay. bacdamaa saas ay tahay, munaafiqiin yaanan noqonin. salaada subax aad bay noogu adag tahay, salaada subax aad bay noogu daran tahay. waa xilli dadkuy hurdadu ka kacayaan, waa xilli dadku ay rabaan ay ku jiraan, xilliga mtaqaanaa hurdadu ay macaan tahay, xilliga qofka inta qabta bustaha iska qaada, soo istaaga, soo weyse qaata, hadduu kari karo masaajid aadi kara yimaada, dhib kale iyo cudurdaar kale aysan markaa jirin. waa qof ilaahay agtiisa qiimiyi wanaag ku leh, waa qof salaadaha ilaahay ilaaliyey. war qof allaala qofkii jecel in ilaahay jannada uu siiyo, khayrka iyo wanaagga uu ku abaalmariyo, ha ilaaliyo salaadaha. axyaabo fara badan oo noocaasoo aahaar ah ayaa markaa jirtay. dadaala dumarow dukada, qorbi subxaana watacaala ka cabsada, taacadii ilaahiyo diinta ku dadaala. dhallinyaray tukada, ilaahay diintiisii taacadiisa ku dadaala. salaad la'aan waa diin la'aan, salaad la'aan waa diin ka fogaasho, salaad la'aan waa alla ka furasho, salaad la'aan waa iimaan la'aan, salaad la'aan waa ballan la'aan, salaad la'aan waa qofka ilaahay subxaana watacaala uu hadduu saasoo kale noqdo islaamkii diinka ka baxay. rabbi baa tilmaamay, fain taabuu wa aqaamuu الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. hadday towba keenaan, salaada ay hagaajiyaan, zakada ay gutaan, ay la baxaan, waa walaalihiin, diinkay idinkula walaala yihiin. haddiise imtiqaanaa salaada aysan hagaajin baa loola jeedaa, haddiise zakadu aysan bixinin, haddii aysan towba keenin, walaalihiin ma aha, walaalihiin ma aha, walaalo ay idinla yihiin ma jiro. saa darteed buu ilaah yidhi, fain taabuu, hadday towba keenaan, shirki iyo gaalnimo ay ka fuqaan, rabbi ay u soo rujuucaan, daacadii amarka alle ay fuliyaan, waxdaaniyada alle ay xoojiyaan. waa fain taabuu, hadday shirki ka soo laabtaan oo ay tawxiid u soo noqdaan, haddii kufrinimo ay ka soo laabtaan oo ay iimaan u soo noqdaan, khayrka u soo laabtaan,
fain taabuu wa aqaamuu asalaa salaada ay toosiyaan hagaajiyaan sidii loogu talagalay ay u tukadaan fa ikhwaanukum fi ddiin. aayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan hadday towba keenaan salaada ay tukadaan sakada ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda u sii daaya. haddaan daansanina, dhiigooda ha daadinina, xoolahooda qaadanina, cirdigoodii sharaftooda waxaa ka sheegina, waa idinka mamnuuce. waayo way towba keeneen, iimaan bay qaateen, allay ka cabsadeen, daacada allay ku dadaaleen. fain taabuu hadday towba keenaan wa aqaamuu asalaa salaada ay hagaajiyaan waatawu azakaah sakada ay bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaalihiin diinkay idinkula walaala yihiin. fakhalluu sabiilahum jidkooda u sii daaya. haddayse towba keeni waayaan, shirki iyo gaalnimo ay ku sii jiraan, salaada ay toosin waayaan, sakada ay bixin waayaan, walaalihiin ma aha. ama jidkooda ha u sii daynina. meel kastood ku qabataan ood ku aragtaan buu leeyahay ilah subxaana wa tacaala garta inaysan walaalo idinla ahayn. war qofka walaalkaa waa qofka ahlu salaadka ah, qofka walaalkaa waa qofka ahlu tawxiidka ah, qofka walaalkaa waa qofka ahlu zakaadka iyo sakada bixiya. xaaladaasaa loo baahan yahay. war dadka salaada ku qiimeeya, war qofka salaada u fiiriya. gabdhow waxaad guursataan nimanka ahlu salaadka ah, ragow idinkuna gabdhaha ahlu salaadyaalka ah guursada. sababtu waxay tahay maanta dhibaato badan baa taagan. ninkii naag buu guursanaa ma tukado, ayadii way tukataa, ayadii baanan tukan, asagii baa mtaqaana tukanaya. xaalada noocaasa ma wanaagsana. war dadku inay salaada wada tukadaan baa fiican, dadku inay salaada wada hagaajiyaan ayaa fiican. nin taariku salaad ah ayaa la nool gabar salaad alla tukanaysa, gabar taariku salaadad ah ayaa la nool nin salaad alla tukanaya. xaalad badan oo noocaasa maanta jirta. waa in la wada istaagaa, waa in la wada tukadaa. hooyadu inay sii weysaysato, aabbuhuna masaajidka aado, markuu soo laabto in ayadoo ay salaadii tukatay waa shay muhiim ah. war taariku salaadnimo ma wanaagsana. qaylada igadeybaa taalla maanta waa laba isqabta. ninku hadduu rabo inuu gabadhu toosiyo ee uu rabo istaag oo salaada tuko, war qaylada igadaa ee nalka igadani. war qaylada lagaa daynayaa maxay tahay? taariku salaadnimo maa lagugu haysanaa? taariku salaadnimo maa guriga kula dhex noolaanaysaa? taariku salaadnimo maa ilmo lagaaga dhalaya? taariku salaadnimo maa rag la dhex joogaysaa? asagana marka gobol ka mida waa sida maa qaylada igadey buu leeyahay. war salaada adeeguma lihid buu leeyahay. xaaladu saayaysan noqon walaalayaal. fain taabuu wa aqaamuu asalaa waatawu azakaa fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaaloo diinkaad ku walaala tihiin. laba isqabta oon labadoodaba tukanin, laba isqabtoo wiilka tukada gabadha aan tukanin, gabadha tukata oo wiilka aan tukan badanaa maanta. ilmaa la kala dhala, salaadna lama tukado. waa laysla mucaamalaya, salaadna lama tukado. mid ka mida tukanaya. hadduu saa salaada u istaajiyo ee uu dhaho istaag walaal, ani masaajidkaan sii aadaya, laga yaabo markaynu bustaa dib isugu duubto. markuu soo laabtay dhahdo qaylada igadaa waa muran badan tahay, ma kaaga tagnaa guriga iyo waxyaaba la mid ah. waxa noocaasaa maanta islaamnimo sheegta, ummatu muxamednimo sheegta, ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag yaa ka gaar. waa qofka salaada ilaaliya, waa qofka salaada toosiya. nebiga sala allahu calay wasalam baa nin u yimid, rasuulkii ilaahayow dembi la gala maxaa u weyn? ama su-aal noocaasoo kaluu weydiiyey. rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu ugu jawaabay ninkii, rabbigaa ha u shariig yeelin xataa haddii lagu googooyo oo markaa lagu cadaabo, haddii dab lagugu dhex ridaayo rabbigaa ha u shariig yeelin. rasuulku midda labaad wuxuu ku yidhi hal salaad oo waajib ah ha uga tegin si kibir ah. qof kastoo hal salaad kibir uga tagaa dimmada iyo diinta alla beri buu ka yahay, bannaankuu markaa ka joogaa. waxyaabo fara badan buu rasuulku ku tilmaamay salaadoo la wanaajiya qiimaheeda. dayacaad la dayacana alla agtiisa in cadaabka kan ugu xun ama ugu xanuun badan lagu mutaysto. ummaday ummad ahlu salaad aan noqono. walilaahi subxaana wa tacaala salaadaasuu nagu ciseeyey. war ayaduu nagu tahiray, ayaduu nagu nadiifiyey, ayaduu qalbigeenna ku xasiliyey, ayaduu noogu talagalay dhibkasta inaan sabab uga dhigana inaan uga baxno bacdamaa saa ay tahaa taariku salaad ku batay. qofkii maanta tukanayana ma yaqaana kayfiyada loo tukado. kii kalena waaba kasii tegayba, ka kalaa kasii darno wuuba dayacayba oo
u maleeyey kasta salaada la tukanayo wuxuu heli lahaa oo dhan inay baaba'ayaan. ma ogtihiin miya wax kasta in salaadii sababteeda lagu helo? war roob haddii la waayo salaad baa la tukadaa, istisqaa baa lagu magacaabaa. war haddii qoraxdu madoobaatay dayaxada iyo qoraxdaba waxaa la tukadaa salaad kusuuf iyo khusuuf la yidhaahdo si ilaahay nooga bixiyo subxaana wa tacaala. war haddii qofku dan iyo muraad yeesho salaad buu tukadaa, istikhaara lagu magacaaba. war qofku hadduu xanuunsado salaad mariid buu tukadaa. war wax kasta salaadaa looga baxa. shay walba iyo dhib walbo qofku soo food saaro salaada hadduu u degdego waa muhiim. dhib markuuna soo gaaro waan qayla dhaansanaa, laakiin meesha ugu qiimaha badan ee loo qayla dhaamiyo waa ilaa xaggii subxaana wa tacaala. taana waxa kalifi kara waa salaada. waa inuu qofku istaagu yidhaahdo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin. rabbow keligaa baan ku caabudi, keligaana waa ku kaalmo weydiisanaynaa. salaada gudaheedaa lagu dhahaa, salaada gudaheedaa lagu yidhaahdaa, salaada gudaheedaa lagu akhriyaa, salaada gudaheedaa lagu xusaa. waxaad tilmaamaysaa in ilaahay maahine cid kale aadan caabudayn. waxaad tilmaamaysaa ilaahay maahane inaadan cid kale kaalmo weydiisanaynin ilaa ilaahay uu yidhi salaada way noo kala qaybsan tahay ani iyo addoonkayga iyo ani way noo kala qaybsan tahay salaada. faatixadaa loola jeedaa, faatixadii baa salaad lagu tilmaamay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. addoonkaygii waa imahdiyey alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaa uu gaaro. iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin hadduu gaaro ilaah wuxuu leeyahy addoonkaygii anay noo qaybsan tahay midaan. wuxuu qiray ani maahine inuusan cid kale caabudayn. anna waxaan ballan qaaday inaan siiyo wax allaale wuxuu markaa i weydiisto. ihdina asiraata almustaqiim laga bilaabo ilaa laga dhammeeyo addoonkaa iskale buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. bacdamay xaaladdu saa tahay walaalayaal, rabbi aan ka xishoono, taacada alle aan ku dadaalno, uma salaada ilaalisa aan ka dhigno. wa'mur ahlaka biasalaat wastabir calayha. salaada ehelkaaga amar kuna sabir. laa nas'aluka risqan, risqi ku weydiisan mayno, iska daayo naxnu narsuquk, annagaa ku arsuqayna buu dhahay ilaahay. ciribta fiicanna dadka taqwada iyo alla ka cabsiga ku dadaalaa iska leh. diin ma jirin ilaa salaad baa ku jirtay, diin la soo dejiyey ma jirin ilaa salaad ayuu ilaahay ummadda ku dhex amray subxaana wa tacaala. saa darteed baa nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu dhahay rabbi jacalnii muqiima asalaa, allow iga dhig mid salaada ooga. نبي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نبي عيسى عليه السلام وحط المامي أصغنا إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صلاة زكو إيدر دارمي إن الله لأنت آنولهي حالدا وحي تلماميسا مركا قفك مسلم كأ إنو أقاد فهمه صلاة أهمية دوين أي مركا ليرهي ويكو اسمسا أو ويكو دورتا ويكو إلاليسا وألقتيسا شرف لو بجارة. صلاة وحي كجفت قسم لغو مقعاب السجود. سجود وحي كمتهي أفعال صلاة اللغو صمية مدى أغو قيمها بضن سيدا درتد بوجهاقي شرفت لها وحاطلك udhigtay ilaahay dartii subxaana wa tacaala. meel kastii aahaar walboo laga sujuudo rasuulku 7 xibnood oo jasadka ka mid ah ayuu tilmaamay in laga sujuudee. qofka 7 xibnood ee uu ka sujuudo hadday dhacdo xataa inuu cadaab galo ama naar galo awood uma laha jahannamo xibnaha laga sujuuday inay cunto. salaada qiimaha ay leedahay darteed ma cuni karto, awood uma laha, ma baabi'in karto, ha cunto jirka intiisa kale. amaa 7 xibnood ee qofka musalligii tukanaya wejiga ilaahay dhulka uu u dhigo ma awood u laha naar inay markaa cunto. inta naarta gasha markuu ilaah yidhaahdo malaa'igta baxa oo ka soo bixiya waxay leeyihin ilaahay maxaan ku aqoonsanaynaa? waxay ku aqoonsanayaan aafaarta sujuudda. waayo waxay tegayaan qadimturxushuu dadkii oo dhuxuloobay oo gubtay oo madoobaaday ayagoo dhan
weeyaan ilaa aahaarta sujuudda maahane. sujuudda waa wax aad iyo aad u qiimo badan. markaad rukuucsan tihiin iyo markaad sujuudsan tihiin qur'aan ha akhrinina ayuu dhahay nebiga. oo markaad rukuucsan tihiinna facadimuu fiihi rabbi ku weyneeyo subxaana rabbiya alcadiim dhaha. markaad sujuudsan tihiinna ducada ku dadaala. waxa suuragal ah in laydinka ajiibee. saasaa marka khayrkii wanaagu ku jira. waxaa la rabaa qofka intuu adduunka joogo inuu tukado. waxaa la rabaa intuu miirkiisa joogo inuu tukado. qofkii xanuunsada wuu tukadaa, kii dhibaataysa wuu tukadaa, kii safar ku jiraa wuu tukadaa. xilli salaada laga dhaafay qofku ma jiro. wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. rabbigaaga caabud ilaa yaqiin ay kaa timaado. salaada tuka ilaa geeri ay kuu timaado. xaaladaasaa markaa loola jeedaa intii wacyi jiro, maskax jirto, waxgarabnimo jiro. salaada qofku waa ka mamnuuc inuu ka tago. isaga hadduu ku tukan waayo fadhi hadduu ku tukan waayo jiif hadduu tukan waayo farta hadduu ka tukan waayo qalbiga hadduu ka tukan waayo ishaaro. si kasta oo amkin noqotaa qofku salaada u tukadaa. nebi moxamedaa sakaraaday sala allahu calayh wasalam. caaisha waxay tiri sakaraad buu markaa ahaa rasuulka. koombada biyaha iisoo qabuu dhahay, gacantuu gelina, wejiguu marina. oraahdiisu waxay tahay allahuma acinnii calaa sakaraati almowt. ilaah sakaraadka mowdka iiga gargaar. allahuma acinnii calaa ghamaraati almowt. laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat. rasuulka asoo sidaa ah ayuu damcay inuu masaajidka aado. biyuu qaatay oo u wis qaatay. wuxuu damcay inuu hinqado, luguu qaaday. tii labaad intuu qaadinna sarajooggiisuu ka dhacay sala allahu calayh wasalam. fa uqmiya waa la miir daboolay. wuu sooxay, cabbaar buu jiifnaa. suu u jiifayba indhihii soo kala qaaday. muslimiinta masaajidkay fadhiyaan, rasuulkay sugayaan sal alla calayh wasalam. waxay jeceliin inuu imaam u noqdo, uuna dujiyo, uuna hogaamiyo. arrintu markay meesha maraysay ayuu biyihii soo qaaday, haddana indhahu soo kala qaaday. hadalka ugu horreeyey uu ku hadlay wuxuu ahaa asalla annaas, dadkii ma tukadeen? waxaa la dhahay maya, hum yantadiruunak, aday ku sugayaan. biyaha isiiyuu dhahay nebiga. biyihii waa la siiyey, madaxuu ku shubay. mar allaala markuu biyi isticmaalay uu damcay haddana inuu istaago, inuu bal awood idayo, inuu masaajidka aado, inuu beytka alle kusoo tukado. waa sakaraad, xanuunkii ugu dambeeyuu mar allaala markuu damcay inuu lugaha qaado, mid buu kor u qaaday, wuu dhigay. tii labaad intuu kor qaad isdhahaayay, haddana sarajooggiisii istaagiisa yuu ka faniinay, haddana wuu dhacay nebiga. fa uqmiya, haddana waa la miir daboolay. cabbaar buu miir daboolna, wuu soo kacay. hadalka ugu horreeyey uu ku hadlay haddana wuxuu ahaa dadka salaada ma tukadeen? mayaa la dhahay, adaa lagu sugaa. 3 mar markuu nebigu dhacdhacay ayuu markii dambe yidhi muruu abaabakar falyusalli binnaas. ani maanta ma bici karo, mana dujin kara dadkii abuubakar amra inuu asaga dadka salaada ka bixiyo. qiso dheeray ahayd. meesha waxaan ka fahmaynaa kayfiyada iyo qaabka iyo maqaamka iyo booska nebigu salaadu ay ka joogto. ka madaxa xanuuna maanta ma tukado, ka kanicada cunta maanta ma tukado, malaariya midka qabo maanta ma tukado. maanta haddii waxyaabo badan ama wax noocaasoo kale timaado lama tukado. qofkii hurda ka badataa ma tukado. nebigana saasuu markaa wax yeelayaa sal allahu calayh wasalam. idan salaada waa shay muhiim ah, waa wax ilaahi subxaana wa tacaala noogu talagalay in mugdigana loogaga bixiyo, iftiinka aan ku gaarno, khayrka iyo wanaagga aan ku helno, sharaf iyo ciziga aan ku gaarno. salaadaa markaa laga dhigay. maxaa lagu cizoodaa? salaad. maxaa lagu sharaf noqdaa? salaad. maxaa lagu taahiraa? salaad. maxaa qofku cizi ku yeeshaa? salaad. maxaa risqiga lagu waasiciyaa? salaad. maxaa xanuunka qofka looga qaadaa? salaad. maxaa janno lagu galaa? salaad. maxaa aakhiro ugu horrayso layska xisaabaa? salaad. wixii oo dhan marka salaad bay markaa noqotaye aan noqono uma salaada hagaajisa oo diinta alla ku dhaqanta oo amarkii ilaahay fulisa oo wuxuu rabbi u diray samaysa, wuxuu ka reebayna markaa ka hartaa. salaadu hadday noqoto salaad la aqbalay, salaad wanaagsan, salaad shuruuddeedii hagaajisay, arkaanteedii la timidna aan ogaana inay munkarkii fuxshiga reebi doonto. waxyaabaha ilaahi subxaana wa tacaala uu diiday ayadaa ka hortegi doonta. qofku marka waa inuu tukadaa si xumaanta uga haro, waa inuu tukadaa si wanaagga u sameeyo, waa inuu tukadaa si ilaahay agtiisa qiimii wanaag iyo sharaf uu ugu yeesho. siimaha iyo calaamadda dadka mu'miniinta ahna ilaahay u siiya subxaana wa tacaala. ma tukada maalinta qiyaama waa la fadeexeeyaa. dadka meesha wada joogaa la dhahaa sujuuda. intii adduunka sujuudi jirtay way sujuudayaan, inta kalena yowma yukshafu can saaq wayudcawna ila asujuud falaa yastatiicuuna, mana awoodi karaan khaashicatan
absaaruhum tarhaquhum dillah, wejigooda qushuucsan, dulli baa ka muuqda. waqad kaanuu yudcawna ila asujuud, sujuud iyo salaad baa loogu wici jiray. wahum saalimuuna, ayagoo nabad qaba, ayagoo bad qaba, ayagoo dhib qabin, ayagoo dheef qaba, ayagoon jiranayn. wahum saalimuun, way bad qabeen. laakiin maalinta qiyaame dhabarkooda looxoo kaluu noqonayaa, mana awoodi karaan inay sujuudaan. waa inta ilaahay u tilmaamay uu yidhi naarta saqara geeya, oo saqara markaa ku shuba, oo su'aal la weydiiyey la yidhi maa salakakum fii saqara, maxaa saqara idin soo geliyey? qaaluu lam nakun min almusalliin, ma tukan jirin bay leeyihiin, salaadaan ka tagnay dhahayaan. lam nakun min almusalliin walam nakun nutcimu almiskiin, masaakiinta cunto ma siin jirin. wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin, maalinta qiyaamana waanu beenin jirnay. wa kunnaa naquudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin xataa ataana alyaqiin, ilaa yaqiin iyo dhab ay nooga timid. xaaladaasaa marka la gaari doonaa. fadaa'il fara badan bay salaadu leedahay. qofka tukadana sharaf gooniya buu leeyahay. habkeesa loo tukadaa? see la rabaa in markaa loo tukado? aynuun arki doonnaa haddii rabbi idmo. balse meesha haynoo joogto. billahi tawfiiq, wallahu aclam.